magaalada Khartoum ee xarunta dalka Suudaan ayaa lagu soo gabagabeeyay seminar looga hadlayay waxyeelada uu leeyahay cudurka loo yaqaan cagaarshowga kaasoo saameyn dhanka waxbarashada ku yeeshay ardayda Soomaalida ee wax ka barta dalkaasi. warbixinta warkan waxa magaalada Khartoum inooga soo diray wariyahayaga Fiidow Maxamuud Fiidow. معالجة هذا الفيروس تتم بانترفيرون ألفا aqoon isweydaarsigan oo ay soo abaabuleen ururka shaybaaristayaasha Soomaaliyeed ee ka dhisan dalka Suudaan ayaa waxa looga hadlay sida looga hortagi karo waxyeelada cudurka beerka ku dhacay afka qalaad lagu yiraahdo hepatitis Soomaalidan oo taqaano cagaarshowga kaasoo arday fara badan oo dalka Suudaan waxbarasho u soo doontay laga helay kadibna dib loogu celiyay dalkii Soomaaliya taasoo waxbarashadu ay ku waayeen. aqoon isweydaarsigan oo ay ka jeedinayeen macallimiin wax ka dhigta jaamacadaha dalka Suudaan gaar ahaan jaamacadda Afrika oo Suudaani ah kuna takhasusay baarista cudurka ayaa ugu waramay qaabka uu abuurmo iyo siyaabaha uu kala faafo. sidoo kale dhaqaatiir Soomaali ah oo iyaguna dhanka shaybaarka ku takhasusay ayaa ardayda Soomaalida ah ee Khartoum jooga uga sheekeeyay qaabka cudurkan oo daashaday ummadda Soomaaliyeed taasoo ay Soomaali badan qabaan hase yeeshee uusan qofka dareemi karin xanuunkiisa ayaa waxa ka warbixiyay calaamadaha laga helo waxay ka warbixiyeen calaamadaha lagu garto cudurkaasi. Dr. Maxamed Cusmaan oo ah gudoomiyaha ururka shaybaaristayaasha Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ka dhisan ayaa sharaxay cudurka qaabka uu kala qaybsamo waxa uu yiri حاول كمدة حاول سنة ونوحا سوا يأينو فيل سوا يأينو بكتير سوا يأينو برتزوها سوا يأينو فلقا سوا لكن عابق عن عابق كاردن وعابق سوا فيلس لو فيلس أقاله فيلس دالو طيبية مرة كانت classification of viruses حلوه كده according to nucleic acid فيلسوا حاجنا وكله DNA وكله RNA ودNA لو single stranded تاني يقول DNA double stranded وRNA single stranded تاني يقول RNA double stranded. sidoo kale Xasan Cali Cabdi oo kamid ahaa ardaydii soo abaabushay aqoon isweydaarsigani ayaa TV-ga qaranka ugu waramay ujeedooyinka ay u qabteen aqoon isweydaarsigani. حقيقة عاوة سادو جدًا وحنا قبلنا ندودا علمية أو طبية أم وحلو يقانو سمنارك أم وعيقلتها وحنا كوعيقلنا أرضيدا عذرك كان قبطة أم هبتايتس كقبطة أم وحلو يقان عجر شوقة السودان تمد دنا ديتنا دولو علنايو وعذر كان لقى لي وحنا عاو قبلنا برنامج كان إن أرضيدا أن وعيقلنا وعيقلنا قسمينه سي أيو كان عذر كان مدلابة مسدلا معهن dadkii miyuu dhibaa qadarka uu yahay dadka uu ku dhibo iyo qadarka uusan dadka ku dhibin xaqiiqatan waxa ka soo qayb gashay dhaqaatiir aad u badan microbiologistayaal iyo waxa la oran jiray dad ku takhasusay waxa loo yaqaan medical laboratory-ga ururkan waxa uu ka soo shaqeeyay gudaha Suudaan khaasatan magaalada Khartoum asoo qabtay waxa la oran jiray seminar fara badan ku qabtay magaalada Khartoum asoo ka wacyi gelinayo caa'ilaadka ama reeraha Soomaaliyeed ee ku sugan Suudaan iyo maxaa la oran jiray ardayda Suudaan ku sugan xaqiiqatan cudurkan la ildaran. dowladda Suudaan ayaa sanadkii la soo dhaafay ku dartay cudurrada laga baaro dadka ajaanibta ah markay doonayaan qofka in uu sameysto iqaamada ama sharci ku jooga dalka Suudaan cudurka ay Soomaalidu u taqaan cagaarshowga kaasoo arday badan laga helay laguna xiray xabsiyo ku yaala magaalada Khartoum halka qaar kalena wadankii dib loogu celiyay. cudurkan hepatitis-ka oo arday fara badan oo Soomaaliyeed ee wadanka ka soo qaadan iyagoo qaba ayaa markii wadankan ay yimaadeen oo ay iyagoo hayso deeq waxbarasho oo si lacag la'aan ay ku heleen sababtay in dib wadanka loogu celiyo. ururka shaybaariyaasha ardayda Soomaaliyeed dalka Suudaan ka dhisana habeenkan caawa seminaarka u sameeyay ardayda Soomaaliyeed dalka Suudaan oo looga hadlay cudurkani beerka ku dhaca ayaa waxay fariin u noqonaysaa ardayda Soomaaliyeed ee doonaya dalka dib inay dalkan waxbarasho ay ka helaan taasoo looga doonayo in cudurkan ay iska soo baaraan inta aysan imaan wadankan kuwa Suudaan joogana ay isaga daweyn lahaayeen. Fiidow Maxamuud Fiidow TV-ga qaranka Soomaaliya Al Khartoum Suudaan.